Sheekh Xasan Dahaye Axmed oo kamid ah culimada waaweyn ee Soomaaliyeed oo maanta qayb kamid ah warfideenada kula hadlay magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal ayaa waxa uu taageero mugyo miisaan u muujiyay xukuumadda uu garwadeenka ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya waxaana uu sheekhu sheegay in tan iyo sanadkii 1991 markii ay burburtay dawladda dhexe ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay ay dawladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay tahay dawladda kaliya ee muuqaal dawladnimo leh soo martay Soomaaliya isla markaasna ay mudan tahay in la garab istaago taageerana loo muujiyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaali meel kasta joogo waan salaamayaa salaanta islaamka idin soo diray. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Soomaalida maanta oo maartaan aan joogno gabagabadii sanadka 2020ka wadanka Soomaaliya waxa ka jirta dawladihii beriyihii hore u eg oo maartaan caalamka maanta kamid ah oo ciidankeeda leh oo nidaamkeeda leh oo maartaan aan kulliba u dhaweyn waxaabina soo maray wixii ka horeeyay maartaan 2017 runtii dawladnimada muuqata cid kastaaba hal maartay ha hayasto laakiin waa dawlad maanta caalamka kamid ah oo jiritaankeedu au hab dawladeed u egyahay weeyaan saa darteed waxaana ila muuqataa mucaaradku kolkay xamar ku ururayaan ama Nairobi ku ururayaan ama istabayacayaan ilaa iyo maartay Dubai iyo Abu Dhabi ay lacagta u doonayaan waxaad moodaa inay dawladda muuqaalka leh maanta inay baabiyaan oo tirtiraan oo inagu celiyaan kooxihii maartaan dagaalami jiray nagu celiyaan ayaa laga yaabaa inay doonayaan saaga waxaan saleehay Kismaayo oo ninkii odaga Axmed Madoobe uu leeyahay isku kaale mucaaradow aan markaa digniin ka soo dirayaa aan leeyahay Axmed Madoobe oo kulli nin Kenya u shaqeeya ah iminkan Imaaraadka iyo Masaarida ay ku soo biireen iyo cidii la halmaashay wuxuu mucaaradka ugu yeerayo Kismaayo inay tahay in halka gobolka Jubbada la yiraahdo laga abaabulo ciidamada dawladda la dagaalama oo maartaan Kenya soo gasho oo Imaaraadku calooshood shaqeyshaasi bilaak watarka ama maartaan wixii la halmaala soo galiyo oo halka dagaal weyn oo sida ka Tigreeg oo kale ka dhaco ayaan u ka baqayaa wayna Soomaalidu u dhig lahaata meesha aad ugu fiirsataa ninkaasi kulli nin Soomaalinimada kan maartay kan naxaya maaha nin Soomaalinimo ku jirta ma aha waa inuu maartaan baabiyo ummadda Soomaaliyeed kulba wixii dawladdu eega soo baxay inuu baabiyo ayuu doonayaa marka waxa weeyaan arinta laga digtoonaan leh khaas ahaan waxaan u jeedinayaa hadalkayga nimankan xalna qabsaday ee faraha badan leh ee beesha caalamka isku sheega aanu beesha gumaysiga dhadaaye nimankaas aan u sheegayaan ilaa intay goorgoorta halka ka qayl lahaydeen mar dambe korku dagaal dhacaan hadda gaar oo maartaan nimanka mucaaradka ee hadda Kismaayo isku tagay intii hore ku ururayeen Nairobi iyo maxaydaanay xamar iyo way rooneed waxay doonaan ku hadlaan laakiin imka marka Kismaayo isku tago wixii la abaabulaba waa dagaal arintaas ayaa maanta aan ka digayaa khatar badan baa ka soo muuqata shacbiga gadada reer gadaadna oo reer gadana kulli yeeli maayaan in Axmed Madoobe lagu celiyo ciidamada Soomaaliya laga soo celiyo yeeli maayaan ummadda Soomaaliyeedna aqbali mayso ciidankii Soomaaliyeedna laga soo qaado Kismaayo ciidan Kenya lagu soo bedelo mucaaradkuna halka waxay doonaan ka sameeyaan de waxa weyn markaa Soomaali ma jireyso waxaan leeyahay Soomaaliya meel kasta joogtaan yana arrimaha u dhug lahaada bahasha qabiilada leeradaan dhinac iska dhigno bal inaan dawladnimadeena waxuun aan soo iftiimino oo maartay godkii midowta ka soo baxday sheeg jiray laakiin maanta dibadda ay joogtaa waa dawlad laakiin curdi weeyaan maartay waad maqnayseen ninka maartay beledweyne jooga shalay lahaa beledweyne lagu iman maayo de beledweyne xaqu geyn hadii uu maartaan loogu tagi waayo beledweyne xaqu geyn wadan gaar u ka dhigi waxa weeyaan waxa la hayaa garaad la yeesho Badaacad magaalada Boorama ee xarunta gobolka Awdal.